ee gobolkaasi Afdheer sidoo kale waxaa degmada Guradhamoole ka bilowday shirkii qiimeynta waxqabadka rubicii labaad ee degmooyinka gobolka Liibaan faahfaahinta warkaasna waxaa inoo soo diray wariye Cumar Cabdi waxaa degmada Guradhamoole uga furmay degmooyinka gobolka Liibaan shirkii qiimeynta waxqabadka 6 bilood ee la soo dhaafay sanad miisaaniyaedka 2019 watar taariikheed dalka Itoobiya shirkani oo ah mid ay degmooyinka gobolka Liibaan ku soo jeedinayaan warbixintooda la xiriirta qorshayaashii u yaalay 6 bilood ee hore ee sanadkan 2019 iyo dhinacyada horumarka nabadgelyada iyo waliba maamulka suuban ayaa waxaa shir gudoominaya gudoomiyaha gobolka Liibaan mudane Maxamed Axmed Maxamed iyo sidoo kale madaxa arrimaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida ee Itoobiya isla gobolka Liibaan mudane Cabdi Hilaal Cabdillaahi Cabdi waxaana wareen shirkani furay gudoomiyaha gobolka Liibaan mudane Maxamed Axmed Maxamed waxaan eegi doonaa kulli qorshayaashii loo yeelay ee aan dhiganay gaar ahaan rubicii hadda aan soo dhaafnay rubicii labaad waxaan eegi doonaa xoogga saari doonaa xaaladda horumarka nabadgelyada iyo xisbiga waxaa kaloo eegi doonaa xaaladda jilaalka maadaama uu jilaal adag jiro inagu goboladana gobolka ugu horan maadaama nahay haddana jilaalku wuu jiraa weelboodyada aan haysano iyo maxaan ku dhahday iyo ceelasha aynu haysano xaaladooda iyo baraagaha biyuhu inoogu jiraan waxaa kaloo eegi doonaa calafka xoolaha waad la socotaan qorsheynu kala qaadanay buu ahaa dhammaan degmooyinka gobolka Liibaan inta ay webiyadu maraan qorsheynu wuxuu ahaa inaan ku beero calafka xoolaha si xoolaheenu ay jilaalka uga baxsadaan ama maadaama webiyada ugu badan gobolka uu maro aan nahay in deegaankeena meelaha badan ee abaarta saameysay in ku saacidno ama ku badbaadino xoolaha deegaankeena ayuu qorsheenu ahaa degmada Guradhamoole degmada Doolacado iyo waliba degmada Dhakaasufta oo gooreen lagu bilaabay inay soo jeediyaan warbixintooda ayaa sheegay in guulo la taaban karo ay ka sooyeen qorshayaasha horumareed ee ay dhigteen 6 bilood ee la soo dhaafay ee sanadkan 2019 iyagoo xoogga saaray kor u qaadista adeegyada bulshada haddaba shirkan oo muddo dhowr maalmood ka socon doona degmada Guradhamoole ayaa waxaa si qoto dheer xoogga lagu saari doonaa sidii ay u fuliyeen degmooyinkani qorshayaasha horumareed ee u yaalay 6 bilood ee sanadkani waxaana sidoo kale shirkan gabagabadiisa looga hadli doonaa sidii loo xoojin lahaa qorshayaasha u yaala degmooyinkani 6 bilood ee soo socota Cumar Cabdi telefishinka caalamiga ee STV degmada Guradhamoole